سؤال وحواي مال waxaa ku dhex socday buuro oo mugdi oo qofna soconin jidka waxa ku arkay nin jidka dhex taagan waana mugdi meesha ku socdo waa mugdi macnaha موجودين سوا ماشي اكو صعد ومال مقد واي نفر صعد مال ابراده نين در مدو وتو جدك دح تاغن اركي نين در مدو وتو هي او جدك دح تاغن اركي marka ilaahay amarkiis marka mobile ku mashquul sana waxa arkay jidka dhaxdo ka taagan jidka macnaha dhaxbartiga xaraaqinta diirinta maarta jidka dhex taagan xaraaqinta maarta xaraaqintu ag taagan yahay dhaxdo macnaha laba dhinac uma badna dhaxdo taagan saas jaakada koofida saas madax ugu deest جابك عنت أجرك وقف بني آدم لكن در مذو وطا وانها والله بالله قاع غيرت مركارك قاري وكل عقار جيس أو ساقبتي ويا بنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هركنا هاي سؤال مركي ويدينا وحس جن 100 جن من نقكر عرنا وجن در وطنا مجرى مقت لكن سيكون على قف جيتك تحتاجن وسقد احنا ما علشان مقدوة ماشي مقت نلا ما لها المجال ما ومال بادي وبورع كدول سعودي ولين بوري هذا كله سعودة سيكون على مركب قف جدك تحتاجن وبني آدم وضربت وانا بني آدم والله العظيم وقف بني آدم سيكون على مركب جن بني آدم ما جرى هاي إلى هذا يا برا والله قف إلى السعودة ولا كل يوم يجي دي سوا نفر إلى السعودة ما لها مركب أركب وايا ونوقع عير توان حي قف جدك تحتاجن يا سيكون عكرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجيب بني آدم جروا يا بي سؤال أديك إذا ويدينا قاصته وحقه سيساعدك جارك وسفرها بينك سيدا كلا قصاد إيجا بس أنا وقصة أركي ويل سومالي وماشي جوجو أو لقط ماشي لو جوي أيضا وقصة أركي أدنى وحومها لأن الصوماليات قربها مال والبقى تجان وحوي دبعتك لو كل مان لأن لحدي سلحات قوي أصوفي عن بوسني سوقلي لويس في عناين لوي ماشي لو جوي كور إن الله وإنا إليه راجعون سوماليدا waxaa meel walba adduunka tagaan saas oo carraan ninkan qasiidaysan insha Allah waa idinka daba geyn doonaa video idinka diyaarinayo oo alla idmo sababta ay tahay wallahi dameerkiigu isiin waaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu youtube ka naga daawanaysaan waa Saciid Serbia waaye waa odaygu wuxuu ku sugan yahay Bosnia saawada ogoodeenbo maalmihii la soo dhaafay 3 maalin oo u dambeysay waxa ku suganaa Bosnia arina inta uu maaday arinteedina wali meesan ii hirgelin laakiin insha Allah sida quraqsiya badan in ii hirgalta ay rajeynaya meeshan iga dambeeyso hadii aadan waliga Bosnia imaanin ama aadan Bosnia soo gaarin isku day hadii aad Bosnia imaato meeshan ina soo booqato meeshan waa meel caan ah waa meel taariikhi ah qof kasta oo wadankan yimaada ama Soomaali noqo ama cadaan noqo ama Turki noqo waxa rabto noqo qasab waxa meesha ina soo booqatid sababta ay tahay waxay tahay dadka dhan wadankan yimaada meeshan ay soo booqdaan meeshan waa meel centralka magaalada ah waayo waa meel caan ah u jeedin qof kasta wadanka soo gala waxa qasab inuu meeshan soo booqdo ma fahanti meeshan maanta aniga naftirkeyga waxa dalxiisaha kamid ah dadka aan u jeedo dad wada dalxiisayo ayaga ka wada mid ah aniga ma fahanti in kasta waqtigu aad uu gaaban yahay arrimo aad u adag ayaa isoo fudle ayaa isoo fuulay oo aan ka wado waxa qasab saacadaha soo socda 2 saac u dambeysay in Serbia ku noqdo ayaa waajib ah safarkeygana waxa ay safar gaariga ku imaaday oo ahayd Serbia to Bosnia gaariga ku imaaday sababta ogaadeen jidkana waa ila marin doontaan insha Allah anyway meeshan hal soo booqda idin leeyahay hadii aad Bosnia imaato meesha soo booqa meeshan waa centralka magaaladan waaye Sarajevo laha qof kasta oo wadankan soo gala waxa qasab inuu meeshan soo booqdo arino sababta dadka meesha soo booqanayaan waa faham waay macnaheedu waxa u maleynaa inaad tahay waa meel taariikhi ah waa meel qof kasta oo wadanka yimaada oo soo booqdo nolosha wadankaana sida u maleynaa ma ahan different aad weena imaaday 3 bilood la soo dhaafay marka imaanay sawgeedeen Bosnia waxa imaaday 3 bil ka hor haddana waa ku soo noqday oo 3 cisho ka hor imaaday nolosha sida ahayd ma ahan waa yaabanahay ma fahanti sababta ay waxay tahay sheyga aan ku ogaay 10 euro 3 bilood ka hor maanta 25 ka sii kacay 15 hore ka fooshay macnaheedu waa fahmi la'aan ma fahanti cameraman aan la iqabo ma fahanti anyway waa iska vlog yaro caate vlogan maadaama aan babaxayo aan ka sii tagaayo Bosnia waxaan jeclaystay inaan vlog iyo doomo meesha masaajid ku yaal soo jeedin masaajidka tus qof kasta oo wadankan yimaada sidoo kale masaajidkan waa booqdaa waa masaajid taariikhi ah aniga historygiis wali ma aan follow gareenin laakiin cid xiisanaysa ama cid u baahan waxa way boora meesha ku dhigan oo tusi kartaa boorkan tus masaajidka historygiisa meeshan uu ku qoran yahay sababta ay xitaa qof kasta wadankan yimaada ama meeshan soo booqdaa waxa qasab inuu masaajidkan soo booqdo anyway nasawad hadimin kaamirada
وحير وحاسمين دونا إنا مال ماشي أنا تجا معمعان يركقاته ما دام دمشقين سأكتين بقى ولعتهاي ربط وحير معمعانه مركا meel meeshaan macmacaanka gaday macmacaanka qaadaya kadib dhankaas iyo gaarigayga ayaan u sii jeesan doonaa maadaama aan gaari ku imaaday aniga ma ihi dadka diyaaradaha ku safro ilaahay amarkiis diyaaradda waa nabcahay waxa ku safro waxay tahay waxa waaye baawura ku safraa marka gaarigayga hadda dhinaciisa u sii jeesan doonaa meeshaan aan macmacaanka qaadanaa then kadib dhankaas iyo gaariga ayaa u sii jeesan doonaa insha Allah waxa meeshaan loogu wada ujeedin alaabahan iyo waxaan waddankan halka mid ah ku jeclaaday waxay tahay cunadiisa boqolkiiba 200 cuno xalaal ay ku siinayaan ma fahanti wallahi billah boqolkiiba 200 waa cuno xalaal ah oo garanti ah wax xaraan dhan ma lagu siinayo kaamir anigu soo qabtay cunada ay ku siinayaan waxa waa cuno xalaal ah boqolkiiba 100 waa cuno garanti ah waa ma fahanti ma ka shakinaysid boosni hadaa timaado cunadeeda ha ka shakinin ma fahanti qasab waa cuno xalaal ay ku siinayaan sidoo kale hal waxa rabaa inaan idin tusiyo waxaan rabaa inaan idin tusiyo wax yar idil qaat macmacaanka inta qaadana can I just get the stuff hadimin asar macmacaanki dumaashi ciyaalka u gada inta ka qaadanaya then kadib dhankaasi waxa u sii jeeso doonaa Belgrade كلك كوش تبرته معانا انت كقاتي كاميرمان waxaan dadka inaad tusiyo meeshaas ku jeeda kaamirada meeshaan sidoo kale ayadana burug waxa lagu gadaa waa meel caan ah qof kasta oo Bosnia yimaada I don't know sababta ay u jeclaystaan waa garan waa meeshaan waa meel caan ah qof kasta waddanka yimaada inuu meeshaas tago oo burug ka cuno qasab waay burug macnaheedu waxa waaye rooti iyo hilib la isdhex geliyo iyo cheese waaye thanks man follow up bro ciao adeegiga inta ka qaatay قال كاميرمان ماشي مع معانك تصينا اكيد بحاجه كلا حننا كاميرا انت وجهي بدح فيريا تصيا ماشان ومال تاريخي هدا بوسني تماد اسكو دينا ماشان اماتو مع معانك قادته ka qaadato burg waxyaabo macmacaan loo gadaa aad iyo aad u fiican waan iska jib way qaali ma fahant marka anyway waxa ku jira daqiiqadii ugu dambeeyay oo aan naga bixi lahay Bosnia marka waa iska sii bixina dhankaasi meesha ka imaana ku jeesanayna ma fahant كاميرمان وكاد سامان soo socdiga كاميرمان waxaan wiil Soomaali ah maadaama oo diiday in kaamirada ku qabto hasaatay dib ma lahan hadda dhankaas gaarigayga u sii jeesanayna waqtiga aad iyo gaaban ma jecel in habeen safro marka waxa qasab in inta ay qoraxda ay soo jeedo aan carara sababtay waxay tahay 500 oo kiiloomitir ay sugayso meesha ka imaaday iyo meesha u soconaayo waxa waaye 500 oo kiiloomitir waa ma fahant marka انت قرحده soo jeedo ina carraa waa ma fahant Serbia ila Bosnia wada dheer u dhaxayso isku ma dhawo marka inta ay qoraxda dhicin waa ina carraa waa ma fahant marka hadda meesha gaariga iyo la tagi doona waxaan adeegyaal ugu gadaa garbasaar iyo waxaas wax walba ka helay ma fahant meeshan marka waxa tagayna hadda meesha gaariga iyo lay gaariga qaado doona gaariga marka qaato jidka ku dhaca ma fahant jidka hee ku dhici doona then dhankaas iyo waxa u sii jeesanaya hadoo leedmo Belgrade maqaayad fiican waa this is a good restaurant right I'm gonna tell to my subscribers if they come to Bosnia they have to visit you thank you so much what do you have everything halal here right everything halal you don't have nothing pork no nothing no brother no pork alhamdulillah you're Muslim alhamdulillah mashallah where are you from Bosnia mashallah thank you brother I'm from Somalia. Oh, thank you. Can you say to my subscribers, Said Serbia? Said Serbia. Said Serbia. Thank you, brother. Hvala lepo. Vidimo se, ciao, brate. Said Serbia. Yeah. That's my YouTube. Said Serbia. Yeah. Marka, waxaad u sii jeesanaa dhankaas gaarigayga meesha yaalay. Gaariga aad tusi doonaa oday gaarigiisa markuu ku dhaco. Waxa ku sii wajahanayay jidkayga galaya ma fahantaadi hawigayga gaariga waa kaasa gaariga tustali taargadan iyo qari taargada la arkay ha odayga Cabdibiliis waa kana Cabdibilo ku imaaday Bosnia hadda galaya safarkiina hadda noo sii bilaabo doona insha Allah wish me sahib safe trip guys isu ducayno ilaahay sanad uu geeyo 500 oo kiiloomitir ay sugayso saacadana hadda waa 10 saac bar waaye soo jeedin 10 saac bar waaye
marka insha Allah ilaahay nabad ay ugu geeyo islaama guys waxayna balan jidka marka galo bye bye oday Serbia waa kana hadda camera ii soo jeediyo ya caawa wax iga yaabiyay ajid ku soo arkay a'uudu billahi minash shaytaani rajiim war hal su'aal idin weydiina su'aashaana waxay qosaysaa dadka gaari ku safro ama gaari wado su'aasha waxa waaye meel waxa ku dhex socday buuro oo mugdi oo qofna soconin jidka waxa ku arkay nin jidka dhex taagan ya waana mugdi meesha ku socdo waa mugdi macnaha moojidin soo meesha ku socdo waa meel mugdi waay nafar socdo malaha brother nin dhar madow wato jidka dhex taagan arkay nin dhar madow wato oo jidka dhex taagan arkay marka ilaahay amarkiis marka mobile ku mashquulsana waxa arkay jidka dhexdo ka taagan jidka macnaha dhaxbartiga xaraqanta deerinta maarta jidka dhex taagan xaraqanta maarta xaraqantu ag taagan yahay dhexdo macnaha laba dhinac uma badna dhexdo taagan yahay saas jaakada koofida saas madax ugu deest jaabka gacanta ugu jira waa qof bini aadan laakiin dhar madow wata waana wallahi bilaa qaca iga yarta marka arkay gaariga waa ku dhici gaari gees ugu soo qabtay waa yaabano a'uudu billahi minash shaytaani rajiim hore ka dhahay su'aala markii idin weydiina waxaas jinni miya jinni ma noqon kara arano jinni dhar watana ma jiro mogt laakiin see ku dhacday qof jidka dhex taagan oo saqdhaxna ma calisha mugdi waa meesha mogta nal ma lahan magaalo ma waa meel baadiyo buura ku dul socday weliba buuraha ku dhex socda see ku dhacday marka qof jidka dhex taagan oo bini aadan oo dhar wato waana bini aadan wallahi alcadiim oo qof bini aadan see ku dhacday marka
jin bin aadan ma jiro إلى هذا خوايا برا والله والله قف إلى الصعود ولا كلية ويجي سوا نفر إلى الصعود ما لها مركا أركا وايا ونوقع عيير توان حي قف جدك تحتاجن يا سيكون عكرتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجيب بني آدم جروايا بي سؤال أسألك إذا ويدينا قاسته وحقه سيساعدتك جارك وصفرها بينك يا أما دتك باورتك وصفرة أو هويلك قالوا أي سؤال شن قصيصة حداد فانسنت هاي وحس كومنت يقول وذاك قفك وياهي أنا أنا مديكر الجن وخف بني آدم لكن جن من أقرأ أنا والله وبالله والله كفتنا ما واحد يشجع ما طارنا بينكم ما طارنا سيكون عادي سؤال شو حقه ساعة دتك باورته وضو أما هبينك السفرة أو صف دتك رجوراج علشان هبينك باورته وضو أي سؤال شو قصيصة هذا فعلسنت أما ده تقارد أما ده ولي أروح على كلنتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ولي أروح على كلنتي كومنت يقولوا سووا ذاك كومنت يقولوا سووا ذاك والسلام إن شاء الله إلى السنة وذا يقول جورجيجا بوسني ونقصنا نقنايا طوال إدمو أفرع شيء كدب مراسة قشرة إن عندنا صار نقضه وهذا إلهي يفضل إن شاء الله أما يسر تكشف وأنجع على أنا أبديت فربنا إذا لسه وذاك لكن وقت إيدي ذي دنا كلا هاي إمرجنسي أكو إمادي حدا إمرجنسي أكو نقضي صابته حتى waxa ay suurtagal weysay inaan update fara badan idin la soo wadaago laakiin hadda tripka markaa soo noqonay janas fiicanahay insha Allah update fara badan waa idin soo gudbinahay hadoo alla idmo oo qosayso nolosha saxda ee Bosnia ka jirto waa idin la soo wadaaga hadoo alla idmo insha Allah sidoo kale qiso aad eegayaabasan waa ku soo arkay wiil Soomaali oo meesha joogo oo lugta meesha loogu gooyay ayadana waa ku soo arkay aadna waxa uga xumahay dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha meel walba ee tagaan waxa way dhibaato kala kulmaan nin lixdiis lixaad qabay asoo fiican Bosnia soo galay luwiis ay fiicnaayeen luwi meesha loogu gooy ka war inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Soomaalida waxa meel walba adduunka tagaan saas u carraan ninkan qasidiisa insha Allah waa idinka daba degan doonaa fiidiyoda kaga diyaarnaa hadoo alla idmo sababtay tahay wallahi dameerkaygu isiin waaye qasidiisa markii la ii sheegay ama markaan la kulmay aan dhanba waa argagaxab so anyway waxa idin leeyahay habeen wanaagsan xogaa ina gaariga speed kooda rabaa nalkan ay shidan yahay oo gaariga soo nal shidan yahay gacantan af mobile ku hayo gacanna steering ku hayo ma soconaysa inaa idin la sii hadlo marka insha Allah waxa inoo balanay Serbia marka tago soo duceeyo wada jeclaa dhamaantiin one love guys ciao ciao alxamdulillah ugu dambeyntii waxa hadda soo gaaray borderka Bosnia soo jeedin waa ka saa borderkii meesha baawura wada taagan askarta meesha ku jirto باسبوركاga taagana oo meesha ku maray baasaboorka ma fahanti marka alxamdulillah ilaahay si nabad uu keenay kan Bosnia hadda ka baxa kadib waxa gala kan Serbia ma fahanti marka waaka alxamdulillah ilaahay si nabad uu keenay team Said Serbia ducadiina ay soo gaartay waa maadsantiin baasaboorka hadda taagana qaar badan ciao ciao meesha mobile ma la duubi kara askara taagan maano lama ogolo laakiin alxamdulillah si nabad ilaahay uu keenay waaka askarta meesha ma jeedino Bosnia calankooda waxa dhan waaka الحمد لله وكسو بحي continue straight بوسنيا waxaa hadda ku dhex jira borderka u dhaxeeyo Serbia iyo Bosnia u dhaxeeya waa ka saaki Serbia u jeedin in 300 meters turn left onto route 26 hadii aan inta ka gudbo waxa gurigayga jooga marka aadiyad oo jeedin waxaan ku qoran welcome to Serbia ya ku soo dhaw Serbia waaye الحمد لله gurigayga nabad imaaday ya waxa waaye wax ay dhimana wax yar iska ma fahanteen wax yariisaan oo dhiman ya continue on route 26 for 3 kilometers ay dhimano kaliya waxa taa saacada yar waaye insha Allah waan nabad tagay gurigayga ya هذه team Said Serbia one love alxamdulillah ilaahay nabad uu keenay laakiin wali waxa ay dhiman wallahi 250 kilometer kala ay dhiman bismillahir rahmanir rahim ma sha Allah هذه وكل فوقين كاربوسني سربيا والله ودنا درس سارن هذه وكل فوقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم روحينا بلنا markaan gurigayga tago gaariga dhagaha ku dhigaya marka waa ka khayr badan ciao ciao